السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada hadda marka waxaan arkaynaa state-ka sida ula isticmaalaysid true and false because true and false-ka sababta si gaar u dhida waxaa waaye because inta badan waxyaalaha zaa'idka isku bedbedela aa aragtaan reactive marka la isticmaalayo waxaa weeyaan inta badan intaana qusaysaa marka waan tusayaa si logically dabcan inaa fahantaan aan rajeynaa marka okay lambar one marka waxaan sameynayaa in aan meeshaan yara tirtiro insha allah code waa idin soo diri doonaa waxaan dhex gelinaynaa isla meeshaan la dhex geli waxaan leenahay state yani koodkaana rabaa inuusan bixin koodkan la qorno fahmaysaa so waxaan leenahay jshs dan meeshaana dhido okay okay component data use state bixi dan koodka iska soo celi malaan marka waxaan sameynaynaa like bottom sidiisa ahaado inputkan xitaa siis wixii dhan sidaas ahaado laakiin waxbaa ka bedbedelina okay meesha waxaan leenahay true show iyo hide waxaan rabnaa sida wax loo qoriyo loona muujiyo inaan fahanno markii reactive la joogo marka javascript insha allah kooraskoo dhammaystiran waxaad ka helaysaan linkii hoose haddii aan javascript aadan garanaynin waxaa khasaba inaad javascript aad barito mar walba oo reactive aad baranaysid inaad javascript aad barito marka full stack kooraska koorsooyinka dhammaystiran linkii hoose aad ka helaysaa mar walba aad koorsooyinkeena aad iibsatidna waxaa helaysaa free mentorship caawinaad free ah oo aad mar walba heli doontid insha allah waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan insha allah marka meesha waxaan leenahay marka waxaan isticmaalayna waxyaalo kala duwan ayaa isticmaali doona marka meesha waxaan leenahay show iyo hide ayaa isticmaalayna marka show iyo set show marka waxaan rabaa inaa wax soo muujiyo waxna qariyo sida u shaqeysa qaabkaas rabaa inaa tuso okay true waxaan ku bilaabanaa marka true wixii uu soo muuqdaa camal aan dhehnaa okay let's see waxaan dhehnaa wixii uu soo muuqdaa okay wax soo muuqda ilaa hadda wax dhan baan sameynin laakiin true oo ku bilaabanaa yani value oo ku bilaawdaa saawaradii kuu sheeday wuxuu ku bilaawdaa value ama qiimo ku bilaawdaa qiimaha ku bilaabana marka waxaa waaye true aan dhehnaa okay marka meesha numberkan ay delete we don't need that bottonka hadda wax kale ku isticmaalaynaa I think state numberka taa is delete state kale ku isticmaalaynaa on click ku diyaarsanaado saas ku ahaato what else meesha waxaa like sidaan oo kale so then set name-ka yeah set name-ka sidiisa ku ahaado set name-ka taa okay marka meesha waxaa leenahay pr upload and pr break yani waa sawir cusub ka dhigana okay meesha marka sawir cusub ka dhigay soo ma then marka hadda waxaa rabaa marka meeshaan adna waxaa rabaa tusaale hadda si fiican idhiis waxyaalo badan aan sameynaynaa markaas tartiib u dhigayso okay halahan waxaa rajeeyaa inaa la socotid halahan inaa la socotid rajeynaa hadda nameka maxaa waaye magaca waa soo ma tusaale qaalida aan ku qoray nameka waa kana intuu yaalaa paragraphkan waaye name ama username xitaa isle username user isticmaalayna username waa soo ma okay usernameka waa kana soo usernameka waxaa noo soo dhigtaa like meeshiisa noo yahay bottonka hoostiisa noo soo dhig okay so bottonka hoostiisa noo soo dhig usernameka meesha kasoo muuqan doonaa bottonka hoostiisa soo ma okay marka breaka meel walba waa inaan dhignaa okay so waxaa sameynaa marka hal mar space okay intaan marka hagaajiso marka sidoo kale intaan xitaa waa idin keedinaya xitaa linkii hoose kel starter stages starter kooda idinkugu qoraa marka linkii hoose kala deg okay 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 so intaan ku bilaabo marka because intaan wax weyn maahan intaan ku bilaabo so then marka add user aan dhehnaa meesha number ay ka ahayd waxaan dhehnaa add user starterka waxaa dhan inaad kugu darayda dhibala add user inta add user la jirada bis intaas oo marka haddaan bilaabanaa marka waxaa rabaa value aan inaa soo qaado kadibna inta aan soo geliyo goormeera waa marka show iyo hideka wax dhan waa u imaanaya laakiin goormeera waa waxaan rabaa markii aan marka meesha wax ku qoro soo maaha markaa qoroba hore inoo kasoo muuqdo ma rabo soo maaha so waxaa sameynaa marka meesha on change-ya waxaa sameynaa value qiimaha u dhiibaya so qiimaha loo dhiibaya marka waxaa waaye nameka waa marka nameka marka ma rabo inaa isla markii lasoo muujiyo marka I don't want that mafahant saas ma rabo waxaa rabo markii kan click la siiyo in markaas lasoo muujiyo okay
so how marka how will it happen say ku dhacaysaa marka haddii aad isku dayid inaad halkan state keliya aad waxaas ku samayso xogo yar waxaa laga yaaba confusion aad ku qaatid marka waxaan dhahaynaa get user function waxaan samaysanaynaa oo get user ah okay react arrow function and like function caadi ah rabaa laakiin waxaan wada shadaleedaa dabcan okay so function tool baa samaystay marka waxaan dhahaynaa get user so userka inaan soo qabanaa rabnaa marka hadda nameka hadda markii saan lagu qoro kale maxamed oo kale waxaa noo haayo namekaana noo hayo sooma marka nameka marabna isla markii in page laga soo muujiyo marka waxaan sameynaynaa set value set user ayaa isticmaalaynaa state kala isticmaalaynaa waxaan dhahaynaa set user so userka noo soo qaadaya okay hadda userka marka ayaa noo haya marka hadda userka ayaa inoo haya userka waxaa inoo haya user value ana noo haya sooma hadda markii magaca lagu qoro taalo maxamed lagu qoro isla markii lama arkaa waxaa la arkaa nameka laakiin waa la arkaa haddii set name uu ahaa laha marka meesha waxaan samayn doonaa marka functionkana wacanaha markaa buttonka click ku sii isla markii ma wacanaya ma fahanti waxaa sameynaa isla markii ma wacanaya waxaa sameynaa markii oo click aad ku sii on click markaa ku sii buttonka ayaa wacanaa marka waxaa dhihi doonaa on click functionkana wacanaa qaabkii loo waco ayaan tusi doonaa don't worry laakiin waxaa sameynaa markii on click aad ku sii functionka la waco set userkan oo loo soo dhiiyo qiimihiisa userka waxaan siinaa set nameka oo micnaheedu tahay set user waxaa loo soo dhiiyo userka hadda wax noo haya hal mar aan tuso userka wax noo haya value qiimaha waa soo aragteen dabcan I think wax filaa taas tusme ma idinka baahna because set user haddiiba inta oo ku jiro userka qiimaha loo soo dhiiyo waxaan ku tusi karaa inaa meesha user aad ku qoro si fudud soo hadaa meeshaan adho maxamed saa ujeeda waa karaa userkii okay so easily waa maano intaas waa fahanteen kadib waxaa rabaa hadda set userkii in uu usii dhiibo set nameka yani userka maadaama qiimaha user hadda noogu jiro waxaa rabaa inuu usii dhiibo set nameka laakiin goorme loo dhiibo markii oo click loo siiyo okay qaab kala duwan u samayn jirtaa laakiin qaabkan waa qaab keliya ugu fudud u samayn jirta right now so waxaan dhahaynaa set nameka waxaa loo dhiiba qiimaha ku jiro set user goorme waa laakiin meesha markaa click ku siiyo tusaale waxaan dhihi doonaa maxamed aan dhahay maxamed deeg kadib meesha waxaan dhihi doonaa add kadib oo soo muuqanaa markaas bisa la rasmaa dabcan inta badan saasay programmadu u shaqeeyaan meesha marka waxaan dhahaynaa functionkan noowac markaa get namekan inoowac okay waxaan dhahaynaa get userka aan dhahay sorry so functionka waa kaya sidii caadiga ah functionka loo wici jiro kala u wicisaa oo javascript okay so easily marka hadda fiiri meesha waxaan ku qori doonaa maxamed deej aan ku qoro meesha waxaan dhahaynaa add soo wajida maxamed deej buu soo muuqanaa marka waxaan filaya hadda inay fahanteen waxa ka hadlayo iyo yani in yani waxa ka hadlayo iyo waxa qaabka wax u socda inaa fahmaysaa waana very important arrinta inaa fahansataa daadir mujida so hadaa dhaho cabdullahi asina waa soo muujin karaa waxaan dhihi karaa cabdullahi waa jaya marka easily marka hadda waxaan filayaa right now in aad caadi u fahanteen oo ay tahay mid aad yani mar walba isticmaali karaysaan okay marka true and false marka saa u isticmaalnaa how aa u isticmaalnaa okay wax isticmaalanaa tusaale kale hadda meeshaan hadda zero waay qiimo zero soo baxaya iyo wixii lamid ah sooma marka true and false waxaan isticmaalaynaa tusaale kale waxaan sameynaynaa qaabka ugu fiican oo isticmaali karno okay qaabka ugu fiican marka waxaan ka dhiganaa tusaale inaa validation ah meeshaan gelino marka okay validation ah meeshaan gelinaynaa so waxaan dhahaynaa validationka meeshaan waxaan sameynaynaa paragraph yar aan ku qoraynaa paragraphka waxaan dhahaynaa enter name here marka si fiican u fiirsaa validationkan iyo waxyaalaan aad u muhiimiyeen inaad si fiican u fahantid okay tajasti don't worry about waxaan ka walwali muxuu waaye tellinsiska insha allah toros tellinsis linki hoose haddii aa qaadatid cashiro very important waaye waxyaale aad iyo aad u badan aad ku baranaysaa run ahaantii sidoo kale tellinsiska waa arkayna qaabka loo install garay okay red 3000 marka 3 waxaa ka dhiganaa 5000 guduud aa ka dhiganaa dabcan inta badan guduud oo noqdaa markii validation kala joodo okay so very small aa ka dhigi doonaa okay spacerna siin doonaa
inkastoo 1 aa siinaya margin top waa intaas 1 ayaa siin doonaa okay please enter your name okay validation kana ugu fiican isdahay inaan markaa ku sameyno muxuu ahaye true and false aan kula tacaamulo okay marka hadda lambarona horta hadda enter your name ma la dhihi karaa sababtuna waxay tahay ani magac goormaa geliyo horta yani magac ma u geli yani ad mana dhihin waxaa rabaa ad markaa dho bis in errorkan liiso saaro goormee liiso saaraa xitaa markaa addaho laakiin aan gelin qoraal ama magacaan meesha gelin aa liiso saaraa so true and false ka rabaa inaad ku fahanno validation xitaa maahan validation inta badan waxaa la isticmaalaa reactive forms aad loo isticmaalaa waa mid aad iyo aad kuu suurtagelinaya inaad validation aad u qurux badan aad samaysid adi laakiin validation mar walba samayn kartaa waxaan rajeynaa haddeertaan in aad ku fahantaan true and false-ka gaaraan stateka qaabka ula shaqeeyo okay lambaron hadda ciladaa jirta oo ah aniga wax maana qorin maxay usoo muuqataa mee qarsoonta okay xaaladda marka aan ku suganahay waa xaalad rasmi ah oo ah xaalad aanan liidhihi karin wax qorsoomaha xaalad koowaad ku suganahay waa xaaladaas marka waxaan sameynaynaa hal mar break aan atirsano yani waxaan ka hor bottonka inuu u dhawaadaa rabaa fahamsaa start very important waaye mar walba inaad iska yaro qurxin karaysid waxyaala badan ay kaa caawinaya okay saanaan rabnaa maana waxaan ka hor inay isku dhawaadaan like that okay marka hadda waxaan sameynaynaa marka kan waxaan ku xiraynaa condition paragraphkan iska soo muuqanayo oo enter your name ka condition aan ku xiraynaa conditionkeena aa marka waxaan isticmaalaynaa kan oo ah show iyo hadda marka haddii show ay sax tahay markaas haddii waxaan ay sax tahay in lasoo muujiyo markaas soo muujinayna hadda marka ugu horeysa marka waxaan ku bilaabanaa sida caadiya hadda false aan ku bilaabanaa inuu sax ahayn waxaa in lasoo muujiyo because hadda qofku wax ma uusan qorin ba aslan marka waxaan leenahay haddii ay sax tahay bis soo muujiyo marka waxaad dhex gelinaysaa paragraphka ayaa paragraphka waxaad dhex gelinaysaa JSHS aa dhex gelinaysaa calaamad JSHS aa dhex gelinaysaa si conditions iyo waxyaala badan aa usoo meesha waxaad ka hormarinaysaa marka si loo soo muujinin waxaad ka hormarinaysaa showga oo ka hormarinaysaa marka if show haddii true ay tahay markaas silii soo muujiyo marka laba mid aa isticmaali karta ima ternary operator inaa isticmaashid ama ima isticmaashid anda inaa isticmaashid okay anda aa dhihi kartaa kadib waxaa sameynaynaa wuxuu sameynaya marka wuu qarinaya marka right now haddii show ay true ay tahay kadib saasaa laga wadaa marka andada waxaa filaa javjirta inaad kusoo baratay waad si fiican u taqaanid andadii caadigeedu waay haddii ternary operator aa isticmaalaysa iyadana caadi waaye waxaa dhihi kartaa if show ay true ay tahay soo muuji haddii kale lc oo colonki ahaa haddii kale waxbaa soo muujin mts aa marka meesha geli karaysaa so labadaas qaabaa loo isticmaalaa trueда iyo false marka false sa u dhidanaa marka false waxa u dhidanaa qofka markuu wax soo geliyoba okay so sidoo wax soo gelinaa marka soo ku odaanayna inuu wax soo geliyo waxaa ku odaanaynaa yani meesha hadduu ma ku qoro intaa lagu keedinoyaa set userkana qaadayso waa wuxuu ku keedinoyaa userka ku keedinoyaa marka waxaa dhehnaa haddii userka oo true noqdo easily hataa meesha waa isticmaali karaynaa let's see if user is true bal laakiin meeshaan hadhow marka waxaa okay waa isticmaali kartaa saa ujeedaan uu soo muujinaa laakiin meeshaan waxaa la rabaa cancel inuu saaro oo haddii waxba isku qornay inuu soo muuqdo at the same time waxaa la rabaa click markii lagu sii inuu soo muuqdo like meel kalaa ka soo maraynaa true and false kana isticmaalaynaa okay userka isticmaali karnaa laakiin dhinaca kale ka soo maraynaa si tartiiba hadda show marka hadda waxaa waaye wuu qarsan yahay marka keliya waxaa la rabaa meesha markii keli lagu siiyo meeshana aysan waxba ku jirin marka waxaa sameynaa meesha jeejareynaa marka hadda meesha waa maxay userka marka waxaan dhihi doonaa if not user hadduusan userka waxba ku jirin oo userka zero aysan ahayn showga waxaa ka dhidanaa set showga waxaa ka dhidanaa muxuu ahaye true aa ka dhidanaa set showga marka micnaheeda xitaa wax waa lasoo muujin karaa errorkii ahaa in aan yani wax meesha aan gelino marka waxaan dhihanaa set show waxaa ka dhigtaa true laakiin had tirtaan isla markiiba soo muujinaya because inaa click siyaa lagiisu kaa ujeeda hadda clickaa siiyey errorkaa lagiisoo qabto waxaa layidhaha please enter a name laakiin haddaa magaca geliyo aa dhaho tusaale kale maxamed then aa click siiyo errorka inuu baxaa la rabaa marka okay so errorka u baxo marka else haddii kale marka haddii kale oo qofka wax soo geliyo marka false keli marka waxaan dhahnaa marka I think intaas waxaa weeye adaaba dhamaystiray inta ani aadan iisu jeedo soo ma marka halaha yar waxaa laga yaabaa inay isdhow like it's so easy nice haddii easy kula tahay intaan
barnaamijka aad ay kugu fududahay runtii hadduu kugu adkaaday dhib ma lahan maalinta dambeysa waa sii fahmaysaa insha allah barnaamij badanaa sameynaynaa sidoo kale course shariicadii oo dhammaystiran linki hoosaad qaadan doontaan ilaa iyo waxaan soo deynaynaa reactive hoogiska dabcan 2 project ayaa jiro aan qaadan doono course gudihiisa insha allah 2 project qaado linki hoose laakiin ilaa reactive hoogiska aan soo deynaynaa marka reactive hoogiska waxaan rajeynaa inaad si fiican u fahantaan si guud marka easy loo soo marka intaan waa marka very nice waaye waxaan filayaa ilaa 15 daqiiqo inaan wax badan ku faa'iideeyo marka conditions badan ma sameynayno intaa ku simaya marka waxaan filayaa intaan haddii aad fahantay in wax badan ku suurgeli doono insha allah salaad meesha ever waaye aan dhahay waxaa la yidhi doonaa please enter name ayaa jeli dana waxaan dhihi doonaa magaca jeli doonaa waxaa doonaa jelinaya dana waxaan dhihi doonaa يعني errorka waa u bixi doonaa marka intaas waxaan rabaa inaad tuso qaabka u isticmaalaysid through يعني muxuu ahaa terminal operatorska andhada qaabka u isticmaalaysid iyo wixii lamid ah marka waxaan filayaa inuu ku fududahay javascript because javascript intaa yaraa sameynaa haddaa dhahayd wax badan ay kugu qaadanaysaa inaad soo dooratid barjaraafki waxa ku jiray a lot of stuff laakiin reactiga aad ay ugu fududahay run ahaantii waxyaalo badan oo ku samayn karaysaa marka waxaan filayaa halkan inaad fahanteen waxaan ugu hadalnay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu